maxkamadda gobolka Banaadir ee dowladda Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay maanta waxay u fariisatay kiiska loo haysto gabdhihii caanka ka ahaa barta TikTok kuwaas oo muddo bil ka hor ah ay soo xireen booliska Soomaaliya tan iyo xilligaasina waa eedeysanayaal dowladda u xiran laakiin maanta markii ugu horeysay ay maxkamadda ka soo hormuuqdeen maxkamadda gobolka Banaadir ayaana su'aalo toos ah ka weydiisay waxa ay ku eedeysan yihiin ee booliska Soomaaliya u soo xireen muuqaalkan oo kooban waxaan rabaa inaan idinku wadaago macluumaadkii ugu dambeysay ee fadhigii maanta maxkamaddu ay ka yeelatay kiiskan iyo go'aanadii ka soo baxay ee soo dhawaada muuqaalkan inoo sheer gareeya maanta waxay ahayd markii ugu horeysay ee gabdhihii caanka ka ahaa barta TikTok ay ka soo hormuuqdaan maxkamadda gobolka Banaadir sidaan ognahay muddo bil ka badan ay u xiran yihiin booliska Soomaaliya waxaana dhacday in gabdhihii la soo wada xiray qaarkood ay hadda dibad joog yihiin oo markaasi aanay xirneen maadaama markii baaritaano boolisku si gaar ah u sameeyeen la ogaaday in iyagu aanay kiiska gabdhahan hadda xiran loo haysto qayb weyn aanay ka ahayn laakiin ugu dambeyn maanta maxkamadda ayaa u fariisatay dhammaantood ayaan ka soo hormuuqda maxkamadda su'aalo toos ayaana la weydiiyay waxaana lagu eedeynayay in markaasi ay ku howlanaayeen ama ay sameeyeen falal isugu jira kicin dadweyne aflagaado iyo sidaas oo kale colaad abuur sida maxkamadda eedeeda ay markaasi ku saleysneed hal ayaa dhammaantood maxkamadda uga soo hormuuqdeen su'aalo ayaana laga weydiiyay laakiin gabi ahaantoodaba waa ay dafireen in ay markaasi shaqo ku lahaayeen waxa lagu soo eedeeyay iyadoo dhinacoodana markaasi abukaatayaal u doodayay ay jireen laakiin maxkamaddu maanta dhageysi ayay ku koobneed waxyaabaha la yaab kalena waxa waaye maxkamaddu in ay mamnuucday in muuqaalada iyo sawirada ee markaasi halkaasi laga duubay la baahiyo kaliyana waxa loo ogolaaday halkaasi inay tagaan oo muuqaalkaasi ay duubaan warbaahinta qaranka inkastoo markaasi aanay suuragal noqon qorshe markii hore la waday oo ahaa in si toos ah warbaahinta looga daawado kiiskan iyo sida uu dhacayo laakiin waxa maxkamaddu ay go'aan ku gaartay ilaa iyo inta kiiskan xukun rasmi ah uu ka soo baxayo in muuqaaladan aan la baahin oo markaasi ay ahaadaan kuwa maxkamaddu ay si gaar ah u diiwaan geliso oo markaasi kayd ahaan ay u haysato laakiin marka kiiskan uu soo ilaado ayaa markaasi la qorsheeyay in mas'uuliyiinta maxkamadduna ay ka hadlaan si toosan warbaahinta dhammaantood qaybaheeda kala duwan loogu casuumo laakiin waxyaabaha ugu badan ee maxkamaddu kiiskooda ay u cuskanaysay waxay ahayd in ay markaasi colaad abuur iyo sidaas oo kale kicin dadweyne iyo aflagaado qabaa'ilada Soomaaliyeed ay ku kaceen gabdhahan oo markaasi ah markii ugu horeysay oo ay ka soo hormuuqdaan maxkamadda gobolka Banaadir sida macluumaadka aan helayo ay muujinayaan laba fadhi oo kale ayaa dhiman oo ay suuragal tahay in gabdhahan ay ka soo muuqdaan ama ka soo hormuuqdaan iyadoo suuragal sidaas oo kale ay tahay in fadhiyadaasi lagu casuumo warbaahinta madaxa bannaan ee Muqdisho si kiiskan oo ah kiis ku cusub maxkamadda gobolka Banaadir uu u noqdo mid markaasi si weyn dadweynaha Soomaaliyeed ay ula socdaan go'aanada maxkamaddu ay ka soo saareyso booliska Soomaaliya ayaa gabdhahan dabcan soo xiray sidaas oo kalena boolisku waxa ay sheegeen cid kasta oo kiiska gabdhahan loo haysto ku kacay in iyana ay markaasi cadaaladda hor keeni doonaan oo lala xisaabtami doono wixii macluumaad ay ku soo kordha wararkeena ayaan idinku wadaagi doonaa haddii Allah wadul waraali ka noqdo